magaaladii curadka ay ma nabad baa reeweel dooniyo ma nabad baa magaaladii mirtada jecleeda ay ma nabad baa reer madiina iyo reer makayare ma nabad baa reer madiino magaaladii dalxiiska ay ma nabad baa shirka wadatashiga beesha reer cali shirkaas oo lagu qabtay magaalada Weeldooni waxaana soo qaban qaabiyay dhalinyarada aqoon-yahaniinta beeshaasi waxaana ka soo qayb galay cuqaasha waxgaradka iyo madaxda kala duwan ee beesha oo looga hadlayay isku keenka iyo wadajirka midnimada beesha reer cali waxgaradka oo meesha ka hadlayay ayaa tibaaxay in ay muhiim tahay in la badiyo shirarka noocan oo kale oo la isku keenayo beesha duqeyda dhalinta مسؤولياش دمال كسو قيب قلي كولنكا آد هم حسينين أيضا آد بانو مهدعنا الهيا عن اسكبورين ان عبسد الربي iyo ina iska dhigeysano oon is ixtiraamno wada jir iyo wada tashi iyo qalbi furan aan isku soo dhaweeyno dhamaanteen rag iyo dumar oon ka hadalno midnimadeena iyo waxgalkeena Allah idin barakeeyo qofkii laabta wax ku qabana Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartii loo baahan laabtaada in awaasiciso intii yarad bariga aan geedka fadhiisanayna raacal sidoo kale isku iimaanayna rag badan oo geedka fadhiyay baa maanta aan la tirinaynin oo qofka ku jira horta xasuusta qaad maxaan inii sheegayaa maanta arinta midnimada meesha aan ka helay ku farxay maxaa kamid rag badan oo adeeryaashay baa haamiyay madiinana way ka imaadeen horta is afiya nin kasta inuu is arki doono Allahu a'lam ma sheegi karo midnimada hadii laga been sheego aan dhahna waan midowno kala tagno oo khaainimo noo dugantahay waa khasaare marka niyo saafi hada leedahay waxaad horta way hagaag qof walba ka hormaad qof walba hal runta mufti fiican in isku sheegay waxaad ugu socon inta hada hawshan aan wadnay waxyaalo badan oo yar oo la kulanay way jiraan laakiin niyadaada markay saafi ay tahay oo dan guud oo raacay aad doonayso waxaad way sacan waxa kaloo astusnay inuu raacay nugulba raacay ulay ku xisaabtamay cid hadda dadab sub county joogto oo aan tashanin oo aan shirin ma jirto maalin walba dadab lagu shira coronavirus jira toon loo shira cid walba way shirtaa waxa loo shiray waa adiga waa marka waxa sunan bal cid inay fariisato bal at least waxaan dareynay bal wax tashanay inaan noqono isku iimaan cid way midaysan tahay waxba kuma kala maqna waxaan ku aansanay in aan Weeldooni isku iimaan diiba maanta meeshan alxamdulillah aan isku iimaan raacali oo hal ciido maqan maanta ma laha qof walbana meel walba macnaha uu gaarsiin hadalka maanta marka waxay nii sheegay walaalayaalow uqdad fara badan ma jirto annaga waan israacnay wiilashaasi annaga u soo diibanay arrinta annaga oo saddex xare ilaa ay Weeldooni annaga u soo diibanay lafweyn baan nahay sida aad filaysaan ma ahan aad baan ma garanaysaa wadankan u degannahay waxyaalo yar baa iska jiro waxaas in macnaha ay meesha ka baxaan raacali waa mid wax hadda oo xumaan u jirta ma lahan midnimo raacali way jirtaa haddii raacali uusan mid ahayn raacali dhammaan maanta meesha iskugu imaan lahayn sababtoo tahay hal magaalo oo maanta meeshan ka maqan ma laha raacali kulligiis wuu imaaday hal tuulo oonan imaanin ma leh cid maanta ka maqan ma leh taayda waxay tilmaan u tahay raacali inuu midaysan yahay oo mid uu yahay waxyaalo yara jiro ma garanaysaa oo badownimo ah masana ma garanaysaa iska yar baa iska jiro waxyaalahaas waxaan rabnaa inaan ka baxtirno oon ka gudubno oo mar damba aanan dib aanan u laabanin dambay u tahay ninkoo dan uma aha saha la ogaado dhammaan raacali muwaafaqada dambay u tahay raacali cid ballaaran waaye waa cid soo jiri jirtay wax fara badan soo jiri jirtay laakiin kolkaas ay reebaadiyaan ay hadda reebaadiyanimada laga soo baxay waa laga soo baxay reebaadiyanimadii cid maanta iska jecel lama arkay Usema ninka niga soo horjeeda haduu istaago waa raacay ku kala raacay wuxuu waa reehbel saan kuuro ugu siin ku kala awliyaano ka shaqeey yusi aad kuurisi u siin barina ismaal bay fadhiisanayaan siyaasad xuma way taageeday horta raacay siyaasad xumada ka fiirsado aan aad uga fiirsana siyaasad xumadaas fadhigan maanta raacay isku imaaday laga hadlahayo aan higsanayno inaan hor u socno higsanayno dad baa soo qalqaalay dadkii soo qalqaalay khayr Allah siiyo kuwii sukaana keenay khayr Allah siiyo wiilashii arrintan ka ku jiray Ilaahay ha ka jisa siiyo jisadooda Allah ka siiyo
وين سكان كينان وين نودل قاتين إن يساو سيدو قاتان وانا درجة الرعالي سكو كينان برينا هودان سكان كينان هرها نوسي ودان خير الله السي si kastaba ha ahaatee beesha ayaa sheegtay in loo baahan yahay shirweyne oo looga tashan doono aayaha midnimada iyo wadajirka beeshaasi. xasan cabdikariin, Weldoni.